Cabdulqaadir Cabdulaahi Maxamed oo kamid ah haldoorka gobolka Cayn ayaa waxa uu mahad celiyay xildhibaanada baarlamaanka ee deegaan doorashadoodu tahay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn iyo waliba sidoo kale ciidamada booliska ee dhawaan tababarka loogu soo xiray xirada Xargoble ee hadda ka howlgala magaalada Buuhoodle sida ay uga shaqeeyaan ammaanka iyo kala dambeynta sidoo kalena ay uga hortagaan dadka falalka ammaan darrada ka wada magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn wuxuuna sidoo kalena u mahad celiyay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Deni inta uu xilka hayay dhinaca kalena wuxuu baaq u diray dawladda Puntland in ay dhamaystirto dhismaha jeelka dhexe ee magaalada Buuhoodle halkan waxaan mahadnaq ballaaran uga soo jeedinayaa madaxweynaha dawladda Puntland Siciid Cabdilaahi Deni madaxweyne annagoo ah shacabka iyo odayaasha gobolka Cayn waxaanu kaaga mahad celinaynaa muddadii 3 sano ahayd aad joogtay xafiiska madaxtooyada dawladda Puntland waxqabadka ballaaran ee aad ka qabatay gobolka Cayn hadday tahay arrimaha bulshada iyo hadday tahay amnigaba madaxweyne wax badan oo aanu tirsanaynay oo tabasho ah oo aanu ka tirsanaynay 4 madaxweyne ee ka horeeyay waxa la oran karaa maanta waanu ka baskoonay adiga ayaana laga duwiyay waadna ku mahadsantahay madaxweyne inta kadib madaxweyne waxaan rabaa mahadnaq kadib halka aan haddeer ku sugan lahay waa saldhigga dhexe ee booliiska mudane madaxweyne halkan waxa ka socota oo aad shaqo aad u ballaaran oo ay qabteen xildhibaanadii gobolka Cayn ku metelayay ama wakiilka uga ahaa dawladda Puntland shaqadaasi waa shaqo amni waa shaqo dadka haddaanu lahay gobolka Cayn aanu bogaadinayno waa ballanqaadkaagii madaxweynenimo xilligii doorashada oo aad fulisay mudane madaxweyne halkan waa saldhiggii dhexe waxa ka socota shaqo dadka u baahan yahay oo shaqadii dawladnimo ah laakiin culays badan uu ka jiro afarta qol ee aad aragto waxay isugu jiraan xafiisyadii ciidanka booliiska hadday tahay qaybta iyo hadday tahay saldhigga degmadaba haddii ay tahay xabsi oo qofka dambiilaha marka ciidanka booliisku ay soo qabtaan ee ay geeyaan maxkamadda ee la xukumo haddana waa xabsi waxa ku wada shaqeynaya ciidankii asluubta dawladda Puntland iyo ciidanka booliiska labaduba way ku wada shaqeynayaan waana 4 qol mudane madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa baahida ciidanka booliisku uu qabo ama hay'adaha amnigu ay qabaan waxa kamid ah in gobolka Cayn loo hirgeliyo oo uu helo xabsi lagu xiro dambiilayaasha marka maxkamaddu ay xukunto waxaanu kaloo u baahan lahay oo baahida ugu weyn iyana ay tahay inaanu helno gaari shabaqla ah oo maxaabiista lagu qaado marka xabsiga la geynayo iyo marka maxkamadda la geynayo labadaba ciidanku haddeer waxay isticmaalaan xaajiyad yar oo qooqana bay iyagu iskood u samaysteen shabag bay ku xidheen 4 qof quray qaadi karaysaa markay ugu badato ama 3 ama 2 haddii la jaamgareeyana waa 4 qof dadka dambiilayaasha ah xabsiyada aanu isticmaalno ee aanu adeegsanno haddeer waxa weeye Garoowe iyo Gaalkacyo inta kiiloomitir ay noo jiraan waad garan karaysaa waxa kalifaya waxa weeye xabsigii gobolka Cayn ee dambiilaha
gacantiisa ciidamada asluubtu ay ku hayn lahaayeen ma dhisna ciidankii asluubta iyo ciidankii booliisku halkan ay si wada jira uga wada howlgalaan ciidanka asluubtu markay booliisku soo qabtaan maxkamadda geeyaan dambiilaha la xukumo qayb baa qaada oo u qaada Gaalkacyo iyo Garoowe qaybina halkan ay joogtaa oo ku ilaalisa maxaabiista gaarigaasi ma nasto habeen walba iyo maalin walba jidku ku jira saldhigu wuxuu leeyahay dhul baaxad leh dhulka baaxadda leh xitaa waa laga sii dhisi karaa inta xabsiga weyn la helayo qolol maxaabiista lagu sii hayo mudane madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa inaad codsiga loo fuliso codsigaas oo ah gaari shabaqla ah in la helo iyo in la helo xabsi gobolkan Cayn oo dambiilayaasha gacanta lagu dhigo libaatada taagan waxa kamid ah 98 ilaa maantadan aynu joogno wax dambiilayaal ah oo la xidhay oo xabsi la geeyay oo saldhig maray oo maxkamad la geeyay ma jiro aan ka ahayn taa maanta bilowga ah taa macnaheedu waxa weeye muddo 4 madaxweyne xilliyada oo 4 madaxweyne xilligii ay soo mareen Puntland oo aan wax dambiila la xidhin waad garan karaysaa dambiilayaashu heerka ay marayaan libaatooyinka kale ee ka jira waxa kamid ah shaqada halkan lagu hayo ma aha degmada Buuhoodle qura waxa weeye xitaa degmooyinka kale dambiilayaashii joogay iyo kuwii tuulooyinka joogay baa inta baabuur lagu soo qaado halkan la keenaya oo dacwadoodii loo keenaya iyo xabsigoodii iyo xukunkoodii iyo xadhigoodiiba culayska inta leeg baa naga haysta anigu ku hadlaya afka odayaasha dhaqanka gobolka Cayn mudane madaxweyne waxaanu diyaar u nahay inaanu qaybtayada ka qaadanno adigana waanu kaaga mahadcelinaa daadejinta maamulka dawladeed ee dawladda Puntland hirgelinta sharciga kala sareynta sharciga iyo nidaamka aad baanu kaaga mahadcelinaa mudane madaxweyne waxaanu ka mid nahay halkudhaga shacabka Puntland ay isticmaalaan dadka isticmaala halkudhagaas oo ah astaanta dawladnimo wanaagu waa madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdilaahi Deni mudane madaxweyne waxaanu ognahay inaad dadkaaga u dhagan ugu shahay baahiyahoodana aad wax ka qabato annaga oo taa ka duulayna mudane madaxweyne waxaan jecel lahay maanta waa isniin way nagu fog tahay isniinta kale isbuucaasi waa nagu fogyahay inaad noo soo dedejiso gaarigii shabaqlaha ahaa ee dambiilayaasha aanu ku xidhi lahayn ama aanu ku qaadi lahayn ee xabsiyada noo dhow aanu ku geyn lahayn iyo inaad jeelkii isagana nagala shaqayso halkan 11 gobol ee Puntland gruubo abaabulan oo maandooriyayaasha ka ganacsada ayaa jooga waa webi khamriya baa halkan la oran karaa inuu ka burqamayo waayo xuduudda Itoobiya oo aynu dhabarka ku hayno ama aynu daris lanahay aawadeed waxay u baahan tahay taasi mudane madaxweyne in ciidanka sida aad ugu taageertay taageero inta ka ballaaran mar walba la siiyo waayo amnigu halka uu ka xasilayo Puntland waa gobolka Cayn dambiilayaasha marka halkan lagu xidhxidhay lagu qabqabto ee lagu burburiyo waxaa nasanaya gobolada Puntland ee ay geynayaan daroogada iyo waxyaabaha aan bannaanayn mudane madaxweyne waxaan halkan ku gabagabeynayaa xildhibaanadii aad soo dirtay shaqo wanaagsan bay qabteen waana markii ugu horeysay ee nidaam dawladeed oo shaqaynaya Buuhoodle oo ka hirgalo dawladda Puntland ay ka hirgeliso waana mid aan u baahanahay xildhibaanadii waa shaqeeyeen booliiskii waa shaqaynaya nidaamkii dawladnimada waa shaqaynaysaa mudane madaxweyne waxaan kaloo halkan rabaa inaan uga mahadceliyo taliyaha ciidanka asluubta Puntland Bila Faarax Cali iyo taliyaha ciidanka booliiska
Puntland Maxamed Cabdi Xaashi oo si wacan oo hagar la'aan halkan uga shaqeynaya. Maxamed Cali Bile warbaahinta Daljeer Buuhoodle.